qaar ka tirsan xildhibaanadii waqtigoodu dhamaaday ee golaha deegaanka ee degmada Burco oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel Tawakkal ee magaalada Burco ayaa ay baaq ugu direen bulshada gobolka Togdheer inay ilaaliyaan dhulka danta guud ah isla markaana aanay xilligani kala guurka uga faa'iideysanin sifa sharci darra. xildhibaanadani waxa kale oo ay warkooda ku sheegeen isla markaana ku cadeeyeen in xilligani dhisme aan sharci ahayn uu ka dhex socdo xayndaabka dawladda hoose ee degmada Burco kaas oo ay cadeeyeen in mulkiyadiisa uu bixiyay maayirkii hore ee degmada Burco Maxamuud Axmed Xasan Dhegalaabe. xildhibaan Baashe Muuse Maxamed iyo xildhibaan Jaamac Xaaji Axmed oo kamid ah xildhibaanadii ka hadlay shirkani jaraa'id ayaa si wada jir u soo jeediyay in la tixgeliyo isla markaana la raaco go'aankii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye ee salka ku hayay dhulka danta guud. iyagoo xildhibaanada arrimahaasi ka hadlaya waxay dhaheen xildhibaanada golaha deegaanka hadda waqtigooda dhamaaday aan ku midnahay marka runtii hawshaas oo aanu aragnay in si xun loo maamulay ayaanu doonaynaa inaanu arrintan kaga hadalno xarunta dawladda hoose xarun weyn oo marka hore loogu talagalay dawladda hoose hadday boqolaal sano oo dambe jirto inay ku filaato oo ay adeega dadka daboosho si walba ku waajiba. marka waxaanu leenahay arrintaa si degdeg ah wax loogu qabto ku haysaan nin buu ka kireeyay dawladda hoose dhistay dabadna nin baa laga kireeyay ninkii baa damacay ka galay oo runtii damacay inuu hunguri ka galay imika intii kala wareega lagu jiray natiijada ay dhamaatay golayaasha deegaanku ayaa dhismaha cusub ee arkaysaan ee sawirka ka muuqda la sameeyay. waa ogeydeen waqti dhow ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanye wareegta ka soo saaray uu leeyahay dhulka danta guud wixii ka dambeeyay 2003 mulkiyadaha loo samaystay waa waxba kama jiraan. barasaabada taliya qaybeedyada maayarada wasiirka arrimaha gudaha laamaha dawladda oo dhan lagu amray inay ilaaliyaan oo tixgeliyaan wareegtada. maanta iyadoo lagu jiro waqtigii kala wareegaha ayaa xaruntii dawladda hoose inta laba loo qaybiyay la yiri qayb kamid ah baa nin la siiyay.